madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa ku qaabilay xarunta baarlamaanka Soomaaliland shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada iyadoo madasha khudbad sanadeedka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeedinayay fadhiga wadajirka ah ay yeesheen xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo guurtida ay goobjoog ka ahaayeen shirgudoonka baarlamaanka Soomaaliland gudoomiyaha maxkamadda sare xubno kamid ah golaha wasiirada xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo guurtida maayirka caasimadda Hargeysa iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa si qoto dheer uga hadlay khudbadiisan xaaladda guud ee dalka Soomaaliland guulaha xukuumaddiisu ay ka gaadhay kaabayaasha arrimaha bulshada siyaasadda arrimaha dibadda adkeynta amniga isku xidhnaanta bulshada iyo hadafka mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku taamayso walaalayaal sanadkii ina dhaafay 2022 wuxuu ahaa sanad colaado siyaasadeed oo iskaga hor yimaadeen quwadaha adduunka dhinaca dhaqaalaha iyo militariga ugu xoog weyn waxa ilaahay mahadiya in Soomaaliland oo dad badan u dardaar wariyo oo lama dhaahdo lama ictiraafsana dhaqaalaheedu inuu yar yahay waxa ilaahay mahadiya inay kaga badbaadeen dhibaatooyinka nabadgeliyo iyo amni taasoo ku timid wadajirka shacbiga iyo qarnimada ay ilaashanayaan iyagoo shacab iyo dawladba isku duubana ay kaga badbaadeen waxaan ku talinayaa in maalqabeennada dalku ay maalgeliyaan wax soo saarka siiba cuntada daruuriga ah oo laga yaabo waa dhow inay ciri adduunka ku gasho waxa ila haboon in xoolo dhaqatadeena loo gurmado iyaguna ay dadaalaan si aynu xoolaha u xanaanayno waxtarkooda iyo wax soo saarkoodana sida uu yahay si ka badan aynu uga soo saaro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sheegay in dawladdu ay xoog saartay kobcinta dhaqaalaha si kuntigiis dhaqaale qaranka Soomaaliland uu galo casriyeynta iyo horumarinta hanaanka iyo kaabayaasha dakhli ururinta kor u qaadidda dakhliga cashuuraha bariga iyo hoos u dhigidda ku tiirsanaanta dakhliga cashuuraha kastamada kalsoonida dadweynaha ee cashuur bixinta kobcinta dhaqaalaha guud ahaan toosinta maamulka kharash bixinta iyo daafurnaanta isticmaalka miisaaniyadda qaranka waxay xukuumaddu dhaqan gelisay habraacyo caalami ah oo xoojinaya la dagaalanka musuqa iyo la xisaabtanka xatooyada hantida qaranka kuwaas oo lagu hagaayo nidaamka xisaabaadka hay'adaha dawladda iyo maamulka maaliyadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa iftiimiyay mashaariicda manfaca leh ee miisaaniyadda qaranka laga maalgeliyay waxa miisaaniyadda qaranka sanadkii tagay laga maalgeliyay 89 mashruuc mashaariicdaas oo ku kacay qiimo lacageed oo dhan 163.7 bilyan waxaanay ka badan yihiin mashaariicda sanadkii hore ee 2020 boqolkiiba 3.11 waxa dhamaantood la mariyay guddiga qandaraasyada qaranka waxaana lagu fuliyay tartan daahfuran waxa la odorasayaa miisaaniyadda sanadka 2022 ka in laga maalgeliyo 122 mashruuc oo horumarineed oo qiimahoodu gaarayo 293 waxa la kordhiyay shaqaalaha dawladda sanadkii tagay boqolkiiba 13 guud ahaan afartii sano hore sanadkan ka horeeyay ee xukuumaddani talada haysay waxa la kordhiyay shaqaalaha dawladda waxa lagu daray oo lagu kordhiyay 7,907 qof oo u dhiganta boqolkiiba 9 walaalayaal qiimaha shilinka Soomaaliland waxa lagu ilaaliyay inuu ku nagaado 8,400 intii xukuumadda maamulka ay uday sicir bararku sanadkan aan joogno wuxuu marayaa 3.5 ayuu hoos ugu dhacay sanadkan waana halkii ugu hooseysay ee uu gaaray mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dul istaagay guulaha xukuumadda Soomaaliland ay ka gaadhay dhamaystirka dekedaha Berbera Maydh iyo madaarka Berbera jidadka waaweyn ee isku xidha gobollada dalka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa gabagaba ah
dhismaha dekedda kalluumaysiga ee mayd oo ay ku baxday $5 milyan waxay naga caawiyey sanduuqa SDF waxa boqolkiiba boqol dhamaaday wajigii koobaad ee dhismaha dekedda berbera oo ahaa 400 mitir waxa bilaabmay oo socda 600 mitir oo dekedda ah oo gabagoobi doona haddii la yiraahdo sanadka soo socda dhexdiisa garoonka berbera oo aanu soogayno inuu dhawaan la bilaabo hawshiisa caalamiga ahayd rakaab iyo kaargooba iyo shixnadu waxa dhamaad ku dhow wadada burco ceergaabo 10 kilomitir baa u harsan wadada xukuumadda Afrika sanood waxa ku baxay $450 milyan $484,000 waxa dhamaaday wajigii koobaad ee wadada berbera corridor oo ah Hargeysa ilaa berbera waa dhamaaday waxa dhawaan bilaabmaya dhismaha aaga ganacsiga ee cashuurta ka caagan free zone waxa la filayaa in uu hoy u noqdo shirkado badan oo maxalli ah iyo kuwa caalami ah isla markaana ay uu shaqo u sameyn doono in ka badan 1,000 qof waxa la bilaabay oo socda dhismaha kaawada wadooyinka oodweyne burco iyo laascaanood kala baydh waxay ku dhammaan doonaan muddo kooban insha Allah waxa hadda dhamaaday sahaminta wadada isku xidha lowya cadaboorama mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa si faahfaahsan uga hadlay waxyaabaha dawladdu uga qabsoomay waxbarashada caafimaadka biyaha iyo adeegyada muhiimka u ah bulshada Soomaaliland dhinaca waxbarashada waxa sanadka tagay la dhisay 7 dugsi oo cusub waxa la dayactiray 24 dugsi oo hore waxa deeq waxbarasho dalka dibadiisa ah loo diray 470 arday waxa waajib laga dhigay oo sharci laga dhigay in boqolkiiba 10 ardayda jaamacadaha dawladda ay bilaash noqdaan oo dan yarto ay ku dhigan karto si ay fursad ugu helaan dadka aan waalidkoodu kori karin inay carruurta tacliinta ka bixiyaan jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyagana waxa waajib laga dhigay boqolkiiba 12 ardayda inay ka dhigaan bilaash oo ay u xidhnaadaan dan yarta xanuuno kala duwan laga talaalay 654,360 carruur daawada adeegyada caafimaadka laga fidiyay isbitaalada qaranka ee dawladdu leedahay $1,530,000 qof sanadkii 2020 waxa la dhisay 18 goobood oo caafimaad oo ay ku jiraan 4 isbitaal oo gobolada laga kala dhisay waxa la dayactiray 23 goobood oo xanaanooyin ah caafimaadka waxa la daaweeyay xagga xoolaha 3 milyan oo neef waxa nafaqeyn la siiyay 1,570,000 neef oo xoolo ah waxa ka faa'iideystay 75 qoys oo 75,000 qoys oo xoolo dhaqata waxa la dhisay shaybaarka qaranka ee baarista cuntada iyo daawooyinka oo ku kacaya lacag dhan 13 bilyan oo hadda diyaar ah dhinaca biyaha sanadkii tagay waxa la qoday 40 ceel oo dhaadheer iyo 6 ceel oo gaagaaban waxaana la dayactiray 60 ceel oo dhaadheer oo hore u dhisnaa waxa la qoday 20 dam ama ballay ku yar iyo kuwa meesha ku jira oo gobolada dalka oo dhan waxa la aasaasay xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa qeexay qorshaha xukuumadda Soomaaliland ee talada haysa ee ku wajahan sidii ay beesha caalamka ula xiriiri lahayd isla markaana ay ula macaamili lahayd xukuumadda aan odayga u ahay waxa tir dhaxaad u ah in cid kasta oo rabta inay Soomaaliland wax la qabsataa ay ugu soo hagaagto in aynu nahay qaran madax bannaan qaran Soomaaliland waxa uu diyaar u yahay in uu cid kasta la yeesho iskaashi waxooda qabsi ku dhisan qadarin cadaalad iyo sinaan madaxweyne biixi ayaa sheegay in xukuumaddiisu kordhisay miisaaniyaddii qalabka ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland si qarankan uu guuleysto waxaanu madaxweyne biixi bogaadiyay bahda garsoorka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee hawlaha adag u haya qarankan dawladdu iyadoo dhiirigelinaysa geesinimada iyo nafquridda ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalabka sida mushaharkooda 30% budgetka maanta sanadkan soo socda
waxa kale oo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda saanada iyo sahayda ciidanka qalabka sida waa naga hayn ee ma aha hakrasho waxay xukuumaddu markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland sanadkii 2020 gudbisay kab miisaaniyadeed oo ay samaysay dhammaan degmooyinka dalka oo ah 101 degmo oo dalka ah dhammaantood waxa la gaarsiiyay kab dhaqaale miisaaniyadeed oo dawladda dhexe u gudbisay dhammaan degmooyinka dalka xukuumaddu iyadoo tixgelinaysa duruufaha dalkeena iyo qiimaha quuta daruuriga adduunka ka qaaliyoobay ee kor noo sii kacaya waxay dhintay cashuurta quuta daruuriga 10% ayay hoos dhigtay si aynu u helno ugu yaraan inagu inta aynu badbaadin karno dadkeena si loo jabiyo qiimahooda waxaan ugu mahadnaqaynaa waaxda garsoorka hadday yihiin xeeraalinta iyo maxkamadaha inay dadaal badan iyo nafhurid u sameeyeen say dadkan ugu garqaadi lahaayeen u garsoori lahaayeen maxaakiimta iyo xeeraalinta guud iyo booliiska arrinta soo baara iyo cidda ku shaqo leh maxkamadaha waxaan ugu mahadnaqaynaa hawsha ay haysaan aad iyo aad buu qaranku dawliga hawsha u haysaan dhibaatada ka dhacda suuqa waaxeen ilaahay waa inoo sahlay dadna gaba dhiman ina gaba dhaawacmin adduunyo gubatay adduunyada waa la helaa dadkii wax ku noqday tirada guud waxay noqon 3670 ganacsade inta istiwaan gelisay markii in badan guddiga raadisay tirada inta wax ka gudbay intaas noqotay ganacsade inta leeg tirada mararka qaarkood dib kasta oo ka tirsan dalka iyo culays kasta oo soo saaray waxa ku farax gelinaya oo ku niyad gelinaya iimaan qabka iyo duwanaaga shacbiga Soomaaliland kuwa waliba baahan ee taagta daran waxa soo urusay lacag ku dhow ama wax yar ka badan 24 milyan 11 waxaanu ka qaaday wasaaradda maaliyadda oo banka adduunka ka deeqo xamar in badan diidanadii ku xalibnayd waxaan ku wareejinay oo ahayn dawladdu waxay bixisay lacag ku dhow 3 milyan ilaa imkana way socotaa waxa kale oo go'aaminay si wada jira inaanu fadhiyin waxaan caawinaya Faransiga badaayay iyo dadkii badnaayay Carabtii dadkii loo yimid in halkan xerada meesha maray ee wada arkay ayaana caawinaya aan sugno taa kuma natashan waxaanu go'aaminay oo shacabka Soomaaliyeed go'aaminay waanu ka dooranaa inuu garab galo inaynu inagu dhisano oo inuu bilow dhismaha u dhisi karnaa ciidiina taageeraysa inagu hawsha wada ay soo gaadho madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa carabka ku dhuftay doorashooyinka Soomaaliland ku soo fool kale sanadkan iyo guulaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka gaadhay siyaasadda arrimaha dibadda sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo isku soo beegmay 10kii sano xisbiyada oo dhamaaday December doorashada madaxweynaha oo taagan November labadu waa waajib saaraynu fiirno labadu waa waajib waa dastuuri waxay noo taala qaran ahaan hadaatiin baarlamaankii xukuumadii xisbiyadii garsoorkii iyo shacbi in aynu labadaas aynu maareyn lahayn baa inoo taala si wada jir ah xisbiyadu haddii dhaqaalahooda aanay xor u ahayn dhibaatooyin baa dhacaysa qarankuna baa khatar galaya xisbiga haddii dhexda gacan shay soo gasho oo dhaqaale geliso cidda dhaqaale geliso mabda'eeda ka furanaysa marka waxaan doonaynaa ururka siyaasadeed soo socda iyo xisbiga jira iyo xisbiga soo socdaba inaynu meel uga soo jeedno xisbiga dhaqaalihiisa iyo go'aamadiisa inay ku eg yihiin muwaadiniinta Soomaaliland oo qura oo sheey gacanta kula jirin waxa daruuri ah in dhamaystirka doorashooyinka inoo harsan ee awrada iyo madaxtooyada labadaba aynu fulino xukuumad ahaan xilkooda anagu saaray muran mare annagana isu yeelan fulino annagana waxa naga go'aan ah in si kasta awooddeedu intay gaarayso labada doorasho dastuur ahaan sayihiin inay inoogu hirgalaan waayo waxa ku jirta aaminaadda dadka inka kursiga jooga aanu dib u xusii jeedin oo ay saa ka socon laakiin waxaanu diyaar u nahay in aanu dhagax walba rugno inaan suurta galino inay doorashooyinkaas ku dib u qabsoomaan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland mabdi'iyan waxay ku dhisan tahay
daris wanaag nabadgelyo iskaashi dhex mara dalalka caalamka oo dhan iyo xasarad la'aan sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland waxay ku dhisan tahay qorshe qeexan oo ah in dalalka qaaradda Afrika la saaro xoog intii hore ka badan si loo soo dhaweeyo aqoonsiga Soomaaliland bulshada kale ee caalamkana lala yeesho iskaashi iyo wada shaqayn dhaqaale oo buuxa oo ixtiraamaya qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland sanadkii dhamaaday waxa uu ahaa sanad hoodo u leh siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland waxaana raacay dadaal badan oo xukuumaddu gelisay iyo in ay qaranka Soomaaliland u soo bandhigto dawlado badan oo adduunka ah taas oo keentay natiijo wax ku ool ah oo lagu naaloon karo wafdi ballaaran oo aan hogaaminayo ayaa safar shaqo ugu tagay muddo 12 cisho ah dalka Mareykanka safarkaasi wuxuu lahaa laba ujeedo oo waaweyn in si dhab ah loo fahamsiiyo dowladda Mareykanka taariikhda xanuunka badan ee Soomaaliland kala kulantay midnimadii dhicisowday ee baadidoonka shanta Soomaaliyeed ku salaysnayd iyo xogta sidii bahalnimada ahayd ee dictatorkii Siyaad Barre ugu dalbaday diyaarado taangiyo madaafiic iyo hub culus oo dhan magaalooyinka iyo dadweynaha Soomaaliland laba in si faahfaahsan loogu sharaxo xasuuqii loo geystay ummadda Soomaaliland iyo sababihii keenay halgankii hubaysnaa ee Soomaaliland iyo in markii shacabka Soomaaliland guuleystay go'aan wadareed oo ku gaareen inay dib ula soo noqdaan madax bannaanidoodii 1960 waa iskaashi bilow ah oo aanu rajaynayno in uu dhaqso u midho dhalo runtii dawladda iyo golayaasha ganacsatada iyo shacbiga Mareykanku waxa ay noo soo dhaweeyeen si aad iyo aad u qiimo badan oo muujinaysa in fahamka Mareykanka ee Soomaaliland uu aad isu bedelay muddadii xukuumaddani xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaaliland waxaanu maanta gaadhay heer lagu tixgeliyo rabitaanka dawladnimo iyo qarannimada Soomaaliland waxa aanu adduunka hor dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo inta wax ka badan aan dhaha laga qarsan karin iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku halayn oo la isku halayn karo oo ku dhisan mas'uuliyad iyo ixtiraam